oo isagana gebi ahaanba u wareegay dekada Garacad iyo sidoo kale deegaanada dekadaha Puntland. baabuurtu si istaba jooga ayay uga gudbayaan magaalooyinka xadka dhaca ee dawladda deegaanka Soomaalida sida Wardheer iyo sidoo kale magaalooyin kaleba. wadooyinka baabuurtii waagii hore wajaaleeyay ka gudbaan ka soo qaadi jiray berbera rarka waxaa rarkii loo weeciyay oo hadda ay u doonanayaan dekada Garacad iyo Boosaaso, halkaas oo ayadana fursad muhiim ah ay ka heleen bulshada reer Puntland. waa dul istaagi doonaa iyadana dhabarjabka dhinaca ganacsiga ee gaadhay maamulka Soomaaliland beelaha idoor faa'iidooyinkii faraha badnaa ee ay ku qabeen dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida oo u wareegay koonfurta Soomaaliya iyo deegaanada Puntland. soo dhawaada muuqaalka like saar aragtideena nagu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay deegaanka Dawacaaley waxaan ogsoonayn in maalmo ka hor dagaal xooggan oo ka dhacay oo u dhaxmaray ciidanka New Booliska dawladda deegaanka Soomaalida iyo ciidamo hubaysan oo ka soo gudubay dhinaca maamulka Somaliland muddooyinka ugu dambeeyayna lagu diyaarinayay deegaankaasi Dawacaaley oo ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan. dagaal culus kadib oo maalmo dhacay waliba isku xiga kadib ciidanka New Boolisku waxay gabi ahaanba cagta mariyeen maleeshiyaadkii ka soo gudbay dhinaca Somaliland. waa tii wax la diliyo wax la qabtiyo wax cararo laga dhigay in ka badan 200 ayaan halkaasi looga dilay maleeshiyaadkii hubaysnaa ee dadka deegaankaana ay isku sheegayay waxba kama jirin ee ka soo gudbay dhinaca Somaliland. intaasi markay dhacday kadib abaabulku wali waa socdaa hadallada iyo sidoo kale colaada kicinteedu mas'uuliyiinta siyaasiyiinta xukuumadda Ciro iyo sidoo kale mas-uuliyiin hore oo xilal kala duwan uga soo qabtay Somaliland ganacsato odayaal dhaqan dhammaantoodba kicinta colaado wax joogta ayay u ahayd oo waxaa ka socda baraha bulshada ogaadeen aan iska celino aan dagaalano kaca qoriga qaata gala dadka la xasuuqay waxyaabo hadalla noocaasa oo aan sal iyo raadna lahayn waxana u taraynin dadka degan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida. intaas kuma aysan ekaanin xukuumadda Cabdiraxmaan Cire maanta golihii guurtigu intay fariisteen ayayba guddi soo saareen oo la leeyahay guddi bay golaha guurtigu u saareen xaaladda deegaanka Dawacaaley. bal adiga dulmiga intuu leeyahay bal adiga daandaansiga bal adiga jahwareerka siyaasadeed bal adiga ceebta meesha taalaay fiiri bal adu waxan golihii guurtiga ee maamulkii Somaliland baa intay fariisteen bayba guddi u saareen xaaladda deegaanka Dawacaaley oo Dawacaaley xagee ku taala waa xudunta gudaha deegaanka Soomaalida. xagee ku taala Dawacaaley? Somaliland maya Somaliland maaha was deegaanka Soomaalida weeye. degmada Xarshin baa laga xukumaa waxay ku taala inta u dhaxaysa Xarshin iyo Yoocaale gobolka Faafan iyo Jaran inta u dhaxaysay ku taala. waa deegaanka Soomaalida ah iyagoo qirsan arka bay hadanana waxaa meesha ka socoto wax saansaantiisa markaad fiiriso dagaalo ahliya inuu dhaco oo lagu mariyo dhiigla la kala furto inuu dhaco sabab u noqon doono haddaysan joojinin maamulka Somaliland faragelinta qaawan iyo sidoo kale daandaansiga deegaanka Soomaalida ay daadnaansanayaan. arrintan markii hore waxaa la moodayay kooxo ergagixisa oo ayagu iskood isku abaabulay wayba ka dartayoo xukuumaddii iyo maamulkii ayaaba daba socdaba oo ciidankan la soo geliyey iyo kii hore iyo midkan hadda la keenayaba waaba arrin ayba xukuumaddu ka dambaysaba waaba arrin xukuumaddu ay ka dambayso. way caddaatay marka arrintan way caddaatay. arrin shirka ku jira ma aha arrin waxaa weeye adeer layska indhatiri karana ma aha. waa duulaan qaawan oo beelaha Isaaq ee Somaliland maamulo ay ku soo qaadeen gudaha dawladda deegaanka Soomaalida. way iska caddaay kooxaan argagixisadana horeyna waan idinku sheegay ta koonfurtana way maalgeliyaan oo talay ku leeyihiin midana maanta waba kaasoo gudihii dawladda deegaanka Soomaalida la isku soo qaawinayo oo waxa weeye guntiga waxa marada loo soo faydfaydanaya oo isku dayna laga sameeyay haddana loo soo huburursanaya. golaha guurtiga ee maanta fadhiistay ee odayaasha maamulka Somaliland waxay waxa weeye magacaabeen guddi xaaladda Dawacaaley baa guddi u saarnay baa leeyahay. waayahay xaaladda Dawacaaley guddi Hargeysa laga saaray
wax ma ka qaban karaan, wax ma u tari karaan? maya, waxba uma tari karaan. way uga sii darayaan xaaladda halkaa ka taagan, way uga sii darayaan dadka shacabka inay deegaanka nabada ugu noolaadaan, way uga sii darayaan in waxa weeye isku socodkii iyo sidoo kaleeto bulshadu ay wax wada cunto sidii hore ay ahaato ayay uga sii darayaan. taas bay uga sii darayaan. taas ba horta tallaabadaas bay xukuumaddii Ciro qaaday. deegaanka Soomaalida war baa looga fadhiyaa. maamulka inuu Cagjar uu hogaamiyo Mustafa Cagjar war baa looga fadhiyaa. daandaansiga Somaliland ay wadaan iyo dulmiga ay wadaan war baa looga fadhiyaa. jawaab ayaa looga fadhiyaa oo shacabka deegaanku ay u fadhiyaan. haddii Cagjar uu jawaab bixin waayo dee waa lala xisaabtamaya, isagana waa lala xisaabtamaya. ismaba inqarinin bay door hadday siyaasi noqdaan xildhibaanadii wakiiladii waxaa leeyahay guurtigii, hadday noqdaan golihii wasiirada, hadday ismaba qarininba banaankaa laysa soo dhigay. ogaadeen baan iska celinaynaa, ogaadeen baan iska celinaynaa, ogaadeen baan warhaadhe ogaadeen ma dhul buu kugu haystaa, war ogaadeen ma dhul buu kugu haystaa isii ku leeyahay. ogaadeen waa dowladda weyn, isagaa xukuma, inta la deganay Soomaalidana mas-uul buu ka yahay, amnigoodu ilaaliyaa. hadduu noqdo dir iyo hadduu noqdo daaroodba waa iskugu mid. ciisay shalay ku dhammaanayeen oo eber ku baxeen oo taliyaashii iyo raggii ugu qiimaha badnaa ay ku dhammaadeen iyagoo difaacaya. war adiga ogaadeen adiga ismaba soo gaadhaane maxaa kaa quseeya? maxay tahay sababta Somaliland maamulkaas yar ee waxa weye qoqobka ku jira, qoqobka ee dhinacna bad kaga wareegsan tahay, dhinacna daarood ka taagan yahay, sababta ay usoo tafaxaydanayaan xilliga ee ay u leeyihiin ogaadeen baan nagu soo duuloon la dagaalamayna? waa yandaro inteeda leeg. shacabka deegaanka iyo xukuumaddiisaba waxaan leenahay hala diyaar garoobo. waxaan waa wax lagu talagalee wixii laga dheefay leeyihiin hala diyaar garoobo. dhinaca kaleeto dagaalkan dawacaalay dhacay saamayn badan buu idoor ku yeeshay. durba qayladaa isqabatay, wow ganacsigii tag, dadkii tage, dukaamadii xidhnay, waan xidhaynaaye baa yeedhaysa. ganacsigii deegaanka Soomaalidu waxa uu u dhaqaaqay bartaas iyo Puntland buu aaday. gawaadhidu saasay isku daba fadhiyaan. magaalo Wardheer la yidhaahdo xaqeedii baa horta dilaacay, xaqeedii ayaa dilaacay. markii horena iyagaaba isdulmiyo, dadka deegaankaabaa isdulmiyey inay ku xidhaan Garacad iyo Boosaaso. Garacad hadda la sameeyey Boosaaso oo ganacsigooda halkaas ay geystaan ayaa la rabay markii horeba, ma aysan samaynina bartaa iyo door bay ku xidhnaayeen. laga soo wareeg gawaarida halkaa bay sii qulqulayaan. dekad baa hadda ka dilaacday meesha la yidhaahdo Wardheer iyo magaalooyin badan oo lamid ah. ganacsigii koonfurta iyo wuxuu aaday meesha la yidhaahdo Eken Puntland buu aaday. dadkii xaqa u lahaa marka horeba iyagaa xaq u lahaayeen ayaa hadda iyo ganacsiga usoo laabtay. horta hambalyaan leeyahay shacabka reer Puntland, weliba shacabka Majeerteen baan toos rabaa inaan ula hadlo. Majeerteenku xoogaa way yar faanfaan badan yihiin. ilmaadeeryaalow dadka soo dhaweeya oo faanfaanka ka daaya oo waa walaaladiina gacan fura ku soo dhaweeya oo qiimaha iyo becshirada dejiya, hoos ka dhiga. hadday noqdaan gawaarida, anugu hadda ka hor baan Boosaaso gaari ka soo iibsaday, 2 gaari ka soo iibsaday oo basasaan ka soo iibiyey. xoogaa waxa weeye qiimahooda uu igu yara sareeyaan oo idoorkaas aan rabin inaan aadaban, laakiin xagga markii dambe ku khasbanaada Boosaaso inaan tago. marka balbaasha dejiya, qiimaha ha la dejiyo, hoos ha loo dhigo becshirada. weliba dadka imaanaya ee ogaadeenka xagga ka imaanaya, annagu hoteelada wax neceb baan inaan seexanee ee inta badan dadku iska reer guuraabay u badan yihiin. xaafadaha u goglo soo dhaweeyo oo ragga dejiya qaarkood oo ganacsatada u guuriyo oo waxa weeye bulshada soo dhaweeya, bulshada hala soo dhaweeyo. meeshu qoomiyad ma waxa ka soo socdee waa dawlado. waxay ugu soo jabay dawlado weeye, dawlado waad ka faa'iidi doontaan, idinkana barwaaqaad ka heli doontaan. laakiin idinkana hay xoogaa waxa weeye faanfaan iyo arowkan muxuu ahaada ka daaya hala soo dhaweeyaan leeyahay. hambalyaan leeyahay, waa guul weyn. dhinaca deegaanka Soomaalida iyo dhinaca Puntland waa laga faa'iidi doonaa, iyo ilaa iyo SSC ba faa'iidooyin badan baa laga heli doonaa. isdhexgalka bulshada, ganacsigaasi quwadda leh ee xaggaasi usoo jabay ee dekadahaasi soo fulayna faa'iidooyin badan baa labada dhinac bay ugu jirta. hambalyaan leenahay, hala soo dhaweeyay insha Allahu tacaala. horay baan anigu shacabka deegaanka Soomaalida dagaalkii Laascaanood markuu bilowday baan qaylo bilaabay. war ganacsigiina soo jeediya, war ganacsigiina soo celiya, war ganacsigiina Boosaaso